qaylinayaan tiro hooyooyin oo garabsanaya ururka dhalinyarada ee Daryeel oo kacdoonkan daanfurkiisa iyo qabanqaabadiisa lahaa. Do it for hooyo daraadeed u jooji. Do it for hooyo. waa naxdin iyo murugo in kacdoon lagu dulqabto qabuuraha ubadkaagii maanta se waxa isu keenay inay badbaadiyaan wiilal kale ama kuwoodii u haray aan dil daba loogu aasin qabuurahan. keedii waa ay weyday sidii maalintii ay u oyday aysan hooyo kale u ooyin bay goobta naxdinta ku abuuraysaa hooyooyinkani naftoodii ula joogaan. dhibaatada nagu kaliftayna maanta banaanka u soo baxno muhiimadda ugu weyn inaan joojino caruurtan dhibaatada haysata isdilkan iyo in caruurtu joojiyaan generationkooda dambe si aan ayatiin uga yeelno. marka waxaan leenahay hooyo darteed u joojiya. we love you so much. waa idin jecelna ood ogtihiin. codkaasi wuxuu ahaa hooyo Nimco Maxamuud Xasan oo wiilkeedii curad lagu dilay Minnesota sanad ka hor. Cabdiraxmaan Mukhtaar oo aasaasaha ururka dhalinyarada ee Daryeel ayaa inoo sharaxaya macnaha ku jira in kacdoonkan qabuuraha dadka lagu aaso ay ku dulqabtaan. marka waxaan meesha u nimid inaan dhalinyaradii laba wax bay ka siman yihiin oo ah jacaylka u qabaan hooyooyinkood maadaama hooyooyinkooda yihiin waxa iyaga koriyay ee la soo qaxay waxa rafaadsan mustaqbal wanaagsan u raba. waxay kaloo ka siman yihiin qabuuraha oo isku meel labadooda la isku garab aaso iyagu gooni iyo kooxaha iska dhigaan laakiin marka ay istoogtaan is soo dilaan waa la isku garab aasa hal meel ayaa lagu wada aasa. hooyo Nasra Xasan ayaa qabta in hooyooyinku ilmahooda la socdaan xaaladahooda isbedel kale ee ku imanaya dhalinyaradan waa inayna u istaagaan intaysan isdilin ka hor. hooyo kasta cunugeeda gurigu ka soo baxa han la socona ilmahayagi aan ogaana ilmaha dhibka haysta aan ogaana cunugu meeshu ka liito aan ka caawina ilmahayaga ileen wadan waxaan nimid aanan ku dhaqan ahayn ku diin ahayn ilmahayagu waa inaan ogaanaa waxa hooyadu waa inaan ogaata number 1 number 2 baahiyadan joogna iyo baahiyadan isku mid ma aha. marka Soomaali hooyo waxaan u farayaa cunugaaga inaad la socotid intan before dhimashadu imaanin. dagaalka dhalintan ayaa ayaamahan ku salaysan xaafado ay Soomaalidu ka dagaan magaalooyinka mataanaha ah mana aha sanadkan ka hor wax la maqli jiray. hooyo Nimco ayaa qabta intaasi ay tahay wax la yaab leh. walaalka hadaa u dilaysaa leedahay walaalkay kan inta dega xaafadan war xaafadana kama lihin waa degana wadankan waa ku dhalateen wadankan waxa u timaada in wax barataan in wax qabsataan maaha inaad yeelataan. aad inta deey karta inta mari karta please hooyo darteed u joojiya. macallin Rooble Maxamed oo kamid ah macallimiinta Quraanka muddo badanna wax u dhigayay dhalinyarada Minnesota ayaa sheegay in ay tahay guul mar haday hooyooyinkii u kaceen arintan qabuurahana yimaadeen. in badanna istilkan uu socday laakiin ma jirin wax si rasmi ugu istaagay. maanta waxaan moodaa in isbedel uu yimi maadaama ay hooyooyinkii dhibaatadu ay gaari jirtay maanta intay yimaadeen. isdilka dhalinta ayaa dhanka kale u dhalan rogtay. awal wuxuu dagaalku ka bilaaban jiray goob muuqata hadda se ibtila kale ayaa soo korortay. waa maxay taasi? Cabdiraxmaan Mukhtaar oo arrimaha dhalinyarada u istaagay ha inoo sheego. oo dhalinyaradu hadda waagii hore waxay isku dili jireen ama waxa la arki jiray markay isdilaan meelaha jimka ama iskuulka dad kala qabta iyagoo dagaal la arki jiray. hadda dagaalku wuxuu ka dhacaa baraha bulshada adigoon ogeyn umbaad ka war helaysaa hebel toogtay. marka waxaan rabnaa arintan inaan marka aan hadda baraha bulshada aan soo dhigno fariintan inaan gaarsiino aan si wadno. do it for hooyo. Cabdalla waa ninka dhaqameedka muslimiinta magaalooyinka mataanaha ku geeriyooda. shalay kacdoonka ayuu ka hadlay waxaana uu yiri I've seen a lot of the young people and waxaan la kulmaa dhalinyaradan istoogatay dhammaantoodna anigaa dhaqay meydadkooda ma xusuusan karo tiradooda waa arin idhibaysa. waan ka hadlay waxaanan wax badan kaga qoray baraha bulshada. But I do comment periodically on social media through my writings.